laakiin waxaad moodaa waqtiyadan dambe inuu bilaabmay gaar ahaan intan waxaan loo yaqaano social media uu soo baxay in dad fara badan oo meelaha ku liqaansanaa oo gaala raac la oran karo amaba se dad magacii islaamka huwan laakiin islaamnimadii ka maran oo fikrado kale oo islaamka si toos ah lid uga aaminsan ayaa bariyahan soo kacay iyagoo adeegsanaya social media waxaana la oran karaa hadafkoodu ama yoolkoodu iyo halka ay u socdaan waa dhalinyarta muslimiinta inay gaalaysiiyaan sidii shuuciyaduba ay ahayd mid doonaysa inay dadka diinta islaamka ay ka saarto laakiin waxooga way kala tabadan yihiin oo shuuciyadu si qayaxan bay isula soo taagaysay mararka qaarkoodna awood bay raacinaysay laakiin kuwani dadkii waa u sunduluuxinayaan oo si aan la dareemahayn bay dadkii u gelinayaan maalin walba kelmado kooban oo si farshaxanimo leh loo soo dhigay oo laakiin gaalnimo xambaarsan oo dadka diintoodii ka shaki gelinaya ilaahay ka shaki gelinaya nabiga kaleey salaatu salaam ka shaki gelinaya quraankii ka shaki gelinaya xadiidka nabiga ayaa dhalinyartii lagu soo tuuraya saxaabadii rasuulka waa dadkii diinta bay noo soo xambaaray oo haddii iyaga la duro warkii ay soo tabiyeen ee quraan ahaa ama xadiid ahaana waxba kama jiraan ayuu noqonaya marka fikradahaasi aad iyo aad bay u soo batay dadka noocaasi dhalinyartii way ku dhex jiraan qaar baa jaamacadaha jooga qaar baa facebookii ku dhex jira website ayay leeyihiin in fara badan oo dhalinyartii ka midina garanba maayaan waxay u haystaan inay yihiin dad caadiya oo ama af Soomaaliga ku fiican hal abuur leh farshaxanimo xagga af Soomaaliga leh qaarkood waxay u haystaan inay yihiin dad aqoon-yahan